kulanti iyo daawasho wanaagsan halkan waa Wararka Media saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale aan kaga hayno qodobada aad daawan doontaan haddii Allah awood laga helo waxa kamid noqonaya Ra'iisul Wasaare Roble awaamir culus dul dhigay madaxda dawlad goboleedyada xilli dhawaan la filayo inay dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay baaritaan dhab ah ku samayso diyaarado dhawaan la soo galiyo dalka golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo qarka u saaran inay kala tagaan maxay tahay sababtu halkan ayaa idin kula wadaagi doonaa saaxiibayaal waxaan sidoo kale saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa al-shabaab howlgal qarshoodiyaha ka waday magaalada Baydhabo oo la qabtay iyo rag aan la filayn oo kamid ahaa howlgalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo daawato channelkan saar subscribe gambalaalka furo siina share garay si aan u helno saaxiib wanaagsan oo adiga oo kala ah siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ahna musharax madaxweyne u taagan xilka qabashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta soo saaray dalab xasaasi ah kadib markii dil uu xalay ka badbaaday ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq isagoona soo jeediyay in si weyn loo baaro diyaaradaha daroonka ah ee dhawaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame waxa uu sheegay in isku dayga dilka ee ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq loo adeegsaday daroon oo qarax laga soo buuxiyay sidaas darteedna uu ku talinayo in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxyaabaha ay yihiin diyaaradaha lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maadaama xalay uu ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq uu ka badbaaday isku day dil oo loo adeegsaday daroon qarax lagu soo xiray waxaan dalbanayaa in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa ay tahay daroonka la sheegay in lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame sidoo kale waxa ugu baaqay hay'adaha dawladda iyo sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed inay hay'adaha ammaanka ay ka gacan siiyaan sidii baaritaan dhab ah lagu sameyn lahaa diyaaradahaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa intaasi hadalkiisa ku daray inay muhiim tahay in la ogaado halka ay ka socdaan diyaaradahaasi iyo ujeedada laga leeyahay waa inay hay'adaha dawladda naga gacan siiyaan tababarka ciidanka iyo arrimaha amniga si ay u hubiyaan nooca daroonka la qabtay iyo halka ay u socdeen ayuu mar kale raaciyay hadalkiisa Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame diyaaradaha daroonka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 6 diyaaradood waxaana dalka soo galiyay sida la sheegay xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagoona ujeedku uu keenay ay tahay inuu ku waraabiyo beeraha sidoo kalena uu kula dagaalamo ayaxa waa sida uu hadalka u dhigay laamaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan wax wara kama soo bixin ee ku aadan diyaaradahaas lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde hase yeeshee waxa la filayaa in maalmaha soo socda ay war ka soo saari doonaan diyaaradahaasi xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ah isla markaasina dalka soo galshay diyaaradahan waxa uu sheegay inaysan diyaaradahaasi wax dambi ah dalka ka geysan doonin ujeedadooduna aysan ahayn inay dalka dhib ka geystaan hase yeeshee lagula dagaalami doono ayaxa isla markaasina lagu waraabi doono beeraha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa soo gaaray xaalad ah inaysan ku sii wada socon karin kadib markii ay dhibaato ku noqotay inay isku aragti ka noqdaan xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacayay midowga musharaxiinta oo hal gandheer soo maray isla markaasina xubnaha ku jira ay ku midaysan yihiin in la helo doorasho xor iyo xalaal ah iyo halgankii lagula dagaalamayay muddo kororsigii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha dawladda ayaa markasta oo doorashadu soo dhawaato waxa ay ku qasbanaanayaan inuu dhamaado isbahaysigii ayadoona haatan ay u muuqdaan inay kala danaysteen gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta sidoo kalena ah hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ee himilo qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa muddo dheer ka cagajiidayay inuu sii hogaamiyo golaha isagoona iska fogeeyay dagaalkii Muqdisho ka dhacay ee lagu fashiliyay muddo kororsigii farmaajo waxaana dhawaan laga diiday warqadiis casilaada oo golaha u soo gudbiyay iyadoona lagu qanciyay in xilliga yar ee haray uu dhameysto uuna si gaar ah u wato ololihiisa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo ahaa kuwa iskugu mowqifka
ayaa haatan kala baxay, waxaana hoos u dhac weyn ku yimid saameyntii musharaxiinta kale ee midowga ka tirsanaa. Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa waxaa ka dhex qarxay dagaal kadib markay isku fahmi waayeen taageerada ama cambaareynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Go'aankii ugu dambeeyay ee golaha musharaxiinta ka qaateen xaaladaha Galmudug ayaa banaanka keenay inaysan ku wada socon karin midowga musharaxiinta lana soo gaaray xilligii ugu dambaysta ahayd ay kala tagi lahaayeen. Waxaa arrintan si cad banaanka u keenay afhayeenka midowga musharaxiinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo Jimcihii ku qabtay shir jaraa'id oo isaga u gooniya magaalada Muqdisho. Waxa uu ka eedeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira inay qaadanayaan mas'uuliyadda dib u dhaca doorashooyinka dalka ee aan la ogeyn xilliga kama dambaysta ah ee dhacayso. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay maanta xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, kulankan waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka iyo taageerada farsamo iyo dhaqaale ee beesha caalamka ay ka geysato Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble iyo James Swan ayaa isla gartay sida ay muhiimka u tahay dardargelinta howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa horey ugu booriyay dowlad goboleedyada dalka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan qabashada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka 5tii bishan ayaa walaac xoog leh looga muujiyay dib u dhaca doorashooyinka dalka, waxaana madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqeen inay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan dhamaystirka doorashooyinka inta aan la gaarin dhamaadka sanadka 2021. Sidoo kale, beesha caalamka ayaa ugu baaqday maamulka Galmudug in labada kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhiman uu sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo doorto. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in si dhow ay la socdaan heshiiska madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Waxaan ugu baaqaynaa labada hogaamiye inay si degdeg ah u fuliyaan qodobadii lagu heshiiyay oo ay diiradda saaraan arrimaha mudnaanta u leh qaranka, gaar ahaan dhamaystirka geedi socodka doorashooyinka, ayaa lagu yiri war qoraal ee ka soo baxay beesha caalamka. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si hor u dhaca uga bilaabatay dalka, iyadoona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu wado dadaalo lagu doonayo in si rasmi ah loo gudagalo doorashooyinka dalka oo dhowr jeer hore dib u dhac ku yimid. Guud ahaan saaxiibayaal, inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii naga soo gaaray Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. haddii ay tahay saaxiib markii ugu horeysay ee soo daawato channelkan, saar subscribe gambalaalka furo, siina share garay si ay u gaaraan asxaabtaada kale. mahadsanidin.